naadiga akhriska ee qoraalka halkaraan ayaa soo bandhigay buug la magac baxay ka qiirooday qaladkii dhacay oo qoray Axmed Iskay oo kamid ah bahda Ayareeb ee ka dhisan gobolka Awdal. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer, qoraayo dhalinyaro haween iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan hoggaanka naadiga akhriska ee qoraalka halkaraan iyo dhalinyarada gobolka Togdheer oo si mugle u soo dhaweeyay qoraaga buugani qoray Axmed Iskay. waxaana hadalladoodii waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Axmed Iskay iyo waftiga kala duwan ee kamid tahay kooxda Sadro ka socota ilaa Hargeysa ilaa Burco ilaa Hargeysa ilaa Buuramas kala safray waxaanu campaign iyo lobbying ka galnay oo dawladuna ay aad nagala shaqeysay inaan helo meel gobolku leeyahay oo public library maantana ay nasiib u helay madashan ay fadhino oo aan kira la qaadin daraada ay ahayd markii la furayay xaruntan ama maktabadan rasmiga ah ee reebro ay ugu soo hagaagi karaan buugaagta kala duwan ee hantida ay u leeyihiin waxa jira qof kasta buug gaar uma heli karo laakiin buugaag badan oo qofku jecel yahay ayuu halkan ka heli qoraa Axmed Iskay oo kamid ah qoraayada daada yar ee ku sugan gobolka Awdal oo marti u ahaa naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ayaa ku soo bandhigay buug la magac baxay ka qiirooday qaladkii dhacay. Axmed Iskay in buugiisayno halkan kula wadaagi doonaa isaga waqtiga ugu badan qaadan doona in buugiisa ka qiirooday qalad ka dhacay in kulay Axmed halka buug mu qorin buugaa kale leeyahay jeclaan lahaa kula soo kaftay markuu dhexda socday buugii tacayr iyo xarakadii wuxuu soo qaadi waayay iguma saabsana ama ani kiligii dib igu dhacday ma dhamaanteen umada reer Soomaaliland dhalinyarada reer Soomaaliland iyo cid walba reer Soomaaliland qalad markay akhristaan ay ila fahmi doonaan weeyaan waayo waqtigan galiyay fikirkaygii baa ku jira marka inaad idinku akhridaan oo waqti idinkuna siisaani ani farxad bay ii tahay inayna qaladaadka laga qiiroonayo iyo waxa yihiin waxa kamid ah sheeko la yiraahdo qalbigan la rabay qalbi kala sii raba. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa ku bogaadiyay habka iyo hanaanka ay naadiga halkaraan ay u daadihinayso qalinka iyo qoraalka kuna tilmaamay ururku dayasho mudan. Anoo farxada in naadigan halkaraan ku soo dhaweeyo dhalinyarada Sadro Ayareeb ka socota ee Hargeysa Boorama ka yimi ay ku soo dhaweeyeen aad bay farxad noogu tahay. haween waa wax dhalinyarada Burco ama naadiga halkaraan aanu ku amaani karo wada jirku wuxuu leeyahay in mataqaana dhalinyaro timaado oo goboladii dalka ka timaado jamhuuriyadda Soomaaliland ay meel ku soo hiloobaan ama meel ay yimaadaan ama meel ay ku qalin jabiyaan ay yimaadaan aad bay u tahay qiimo in taadan ka gudbo naadiga halkaraan haddaan nahay gobolkan wuxuu loo ururiyay dhalinyaradii uu kala dagaalamay waxyaabo xunxuma uu ku hogaamiyo waxyaabo wanaagsanaa wuxuu ururiyay aqoontii wuxuu ururiyay mataqaana ilbaxnimadii waxay ururiyeen wax ka soo wanaag waxaana gabagabadii qoraaga iyo Axmed Shaqale oo ka tirsan ururka Sadro ay dhamaantood si mugle ugu gureejiyeen naadiga halkaraan buugaag ay ugu talagaleen in lagu akhristo maktabada Burco. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan, shabakada caalamiga ee Wanaag News, magaalada Burco.